xoogaa oo la tirin karo luqadda Ingiriisiga maxaa lagu dhahaa? waa few. xoogaa waa few. tusaale ahaan few people xoogaa dad ah. jiliin in wax la jilo luqadda Ingiriisiga maxaa lagu dhahaa? jiliin. act jiliin waa act ama acting. ereyga saddexaad jilaayad. jilaayad gabar wax jisha. okay, actress haddaa dhahday waad saxan tahay. actress waa jilaayad. ereyga afraad qoobka, hoos lugta hoos qoobkeeda. okay, ankle haddaa dhahday waad saxan tahay. qoobka waa ankle. ereyga shanaad qofna. qofna nobody. qofna English waxaa la dhahaa nobody. nobody. keligiis. keligiis. alone haddaa dhahday waad saxday. alone. okay, balan. balan waaye. balan. promise haddaa dhahday waad saxan tahay. promise. dadaa ugu dhawaaqa promise. promise maa waa promise. arji qore qofka warqadaha codsiga qoro. typist. typist haddaa dhahday waad saxan tahay. okay, farshaxaniste qofka farshaxanka qoro, farta qurxiyo ama darbiyada wax sawiro. artist haddaa dhahday waad saxan tahay. its artist. okay, cudud. halahan. cudud halahan loo yaqaan. halahan. halahan maxaa la luqadda Ingiriisiga? arm haddaa dhahday waad saxan tahay. arm. ereyga 11aad dhabar. qof walba wuu yaqaanaa dhabar. back haddaa dhahday waad saxan tahay. back. eedo. aunt haddaa dhahday waad saxan tahay. she's my aunt. okay, boorso. bag haddaa dhahday waad saxan tahay. erey ugu dambeeyo waxaa waaye masquul. comment ku soo qor. waxaan filayaa inaad 15kan erey aad ka faa'iidaysteen. haddaan u cusubtiin fadlan soo faalo gareeya. haddaan muuqaalkan ka heshayna 3 asxaabtaada la wadaag. inta muuqaalkan oo kale aan kulmayno waa Macalin Cambuulo idin leh waxbarasho horumar leh. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bye.